kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta loo ku soo dhawaada barnaamijkeena faaqadaada ciyaaraha barnaamijkeena ayaa maanta waxaan jecelnahay inaan ku soo qaadano ciyaartooy farsamaadkii wadanka Soomaaliya magac ku lahay qaranka Soomaaliyeena dadkii markaa ugu cadcadaay Bashiir Yuusuf Maxamed oo loo yaqaan Bashiir Focus oo casho loogu qabtay Blue Ocean Restaurant oo ku yaala xaafadda Shafra Bush. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. waxaa marka hore aan salaamayaa bahweynta isboortiga ee UK dhinac walba football kubadda cagta kubadda gooliska kubadda kulli bahweynta isboortiga oo dhan ilaan baha badan baa jiro marka anagu wadaan nahay bahweynta isboortiga waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib walaalkeen Bashiir Maxamed Bashiir Fox ma aha markii ugu horeysay magaalada uu yimaado balse mar walba waxaan jecelnahay inaan sidaan u soo dhaweyno waxaan ku leenahay ugu soo dhawo magaalada London. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. magacayga caalim baa la yiraa aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan lagu soo dhaweynayo Bashiir Fox waaga uu ciyaari jiray anaga horseed baan madax u ahay ma jecleen inaan asaga iyo dadka jeenida u ciyaara oo dadka horseedka oo dhibka nagu hayo ahay laakiin hadda se maartay reer qurbada aslanahay maartay qana waa ku qasbanay inaan isjeclaano waanu ku soo dhaweynaynaa inuu sportka Soomaaliya wax ku taro wax ku qabto annagana reer diaspora danahay inaan wada shaqeyno oo aan taageerno qof kasto qofkii ma taqaanaa Soomaaliya wax u qabanaya wiil iyo gabarba inaan kulligeen u wada guulmano. Assalaamu calaykum. waxaa mahad leh dadkii isku kaayeeray madashaa noo dhigay oona ugu talagalay macallin Focus oo ahaa ciyaartooy hore haddana ah macallin ka mid ah macallimiinta kubadda kolayga ee Qatar. macallin ku soo dhawow waxaan kaloo rabaa waan hadal badnaay kelmad inaan ku darsado maadaama uu soo la yiri wakiilka Talyaaniga garabkeygana uu fadhiyo qoladii ugu casuntay Faransa gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ee jaaliyadda madaxda u ahaa oo ila fadhiyo hadda markaan Talyaaniga tagayna shaqadeedu waxa way Talyaanigaasaan u qaabilsanahay Olombikada ninkan ogeeno ogaaw midda kale kubadda cagta la aaday waxaan ku soo darnay basket hadduu eebba yiraa programka soo socdo waana ka baxay sportiga hasraaco sportiga hanoolaado. xafladatan quruxda badan leh caawa naloo soo agaasimay bahda isboortiga iyo dadka soo qaban qaabiyey waa ku mahadsan yihiin. Bashiir Focus walaalkay Bashiir Focus wuxuu ahaa in lagu daydo wuxuu ahaa ciyaaryahan qaranka Soomaaliya magac ku lahaa ama wuxuu ahaa ciyaaryahanintii Afrika magac nooga soo hoyday isboortiga Soomaaliyeed waa naga horeeyay basketka haddaan nahay kubadda cagta. waxaan jecelnahay Bashiir Focus waxaan ku leenahay welcome ku soo dhawow London. gabdhaha Soomaaliyeed welcome ku soo dhawaada adinkana xafladatan Bashiir soo dhawow London ku soo بسم الله الرحمن الرحيم مدنيال مروين مركو هريس waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. marka labaad waxaan rabaa marka ugu horeysa horta inaan u mahad celiyo madashan qaaliga ah qofkii soo qaban qaabiyay gartay runtii qof walba wanaagsan yacnahan inuu u sameeyo yacnahan madashan qaaliga ah Axmed Cabdalla Tigana oo runtii soo abaabulay xafladan caawa ah. Axmed Cabdalla Tigana aad baan kaaga mahad celinayaa runtii waana wax runtii loo baahan yahay mar walbana aad runtii aad ummadda Soomaaliyeed u qabato. teeda labaad waxaan rabaa inaan Bashiir Focus oo ah nin legend Soomaaliyeed ah runtii aan ku soo dhaweeyo gacmo furan magaalada London anagoo ah bahda isboortiga
soomaaliyeed gaar ahaan anoo ku hadlaya xaafadda South Hall oo runtii asxaabteedu dhan halkan caawa ay joogto waxaan kugu nimi inaan kugu soo dhaweyno gacmo furan maadaama aad tahay nin Soomaaliyeed oo mutaystay runtii waxaan aad ugu faraxsanahay runtii oo ku faanaa nin Soomaaliyeed oo yaanaha national team oo wadan kala tababaraya oo wax lagu farxo runtii marka qolyooyinkeena fadhi ku dirka bal aan ku dayno Bashiir marka bal aan yara kacno marka mar labaad iyo mar saddexaad Bashiir ku soo dhawow London waxaan kale u mahad celinayaa gabdhaha sharafta leh ee runtii nagala soo qayb galay caawa halkan oo runtii iyagana mudan yaanahan in la sheego aad baa u mahadsantihiin idinkana meediyaha aad baan idinku mahad celinayaa oo mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh dhammaan ummadda meesha iskugu timid dhalinyarada isboortiga waa salaamaya waxaan ku salaamayaa salaamka islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu annaga isboortis manihin gabdhaheena meesha yimid safiya cabdulaahi kaliya annaga ah laakiin ayadan ku mahaysiinayne hase ahaatee maanta loo dhigayay wiilkan isboortiska xafladda loo dhigayay aad baan u faraxsanay inaan soo dhaweyno weli aadan mid tan kasii fiican baan rabnay waana lagu gaaday runtii waa nin magac leh magac weyn isboortiska ku leh annaga dhinaceennana magac weyn ku leh runtii markaan ka hadalno marka sidaasna waxaan ka bixinayaa baljees aadna samayseen raalli asagaan leenahay raalli noqdo runtii markaan ka hadlo wallaahi markii la ii sheegay waa xanaaqay Blue Ocean in loogu dhigo aad baa uga xumahay sababtoo ah maba u qalmin Blue Ocean loogu dhigo xaflad laakiin nagastaa markaa timaadid mid laga sheekayaa ka dhacaysa wadankan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan mahad weyn iskale ilaahay iskugu keenay caafimaadna na siiyay waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa Bashiir Yuusuf Maxamed Bashiir wuxuu ahaa basketballka xamar jajabna ka soo baxay Bashiir wuxuu ahaa 26 xulkii gobolka Banaadir u ciyaaray isla markii Bashiir wuxuu galay Seeraada Badroolka Bashiir isla 27 waxa loo qaatay qaranka wuxuu aaday dalka Masar Bashiir Fox wuxuu magac ku leeyahay kubadda kolayga wuxuu ahaa Bashiir haliyay u soo jeeda u halgamay aniga waxaan kamid ahaa haliyadii ku daba xigay laakiin Bashiir ayaa horseed noo ahaa na soo barbaariyay wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyay oo gobolka bari madax ka noqda 1929 wuxuu ahaa Bashiir dadkii ku gubaabin jiray badroolka ama sida dhalinyarada xamar jajab ama xaafadaha kale looga barto inay kubadda kolayga aad ugu dheelaan wuxuu magac ku yeeshay dalka Qatar wuxuu ka mid noqday kubadda kolayga Qatar ayuu ciidanka u ciyaaray wuxuu ahaa xulkii ayuu markii dambe naadigu u qabtay wuxuuna sii noqday xulka qaranka in loo dhiibo oo dalka Qatar wuxuuna magac ku yeeshay haddana sanadkii hadda waxaa loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka kubadda kolayga ee Soomaaliya waa nin loo baahan yahay waa nin weligiis wuxuu ka shaqeyn jiray ciyaaraha dadka waxyaalaha kale u ordana maaha wuxuuna ahaa dadka isku keena wassalaamu calaykum Bashiir London ku soo dhawow wuxuuna ahaa ninkii aniga London i keenay qofka libtiis ayuu leeyahay aniga ayaan jooga 2001 Ethiopia imi Bashiir ayaa Qatar iga soo wacay wuxuu yiri Cabdiwali hadii fiisaha ku soo baxo waxa dhan ticketkeega iyo shoppingkeega wixii oo dhan asaga ayaa soo diray wuxuuna ka qaaday sportiga marka wuxuu yahay ayaga ayaa walaalaha ayaga ayaa saaxiiba ayaga ehel ah qofka wuxuu qabto waa loo cadeeyaa marka waxaan leeyahay aniga runtii wuxuu yahay waa walaalkay markay barbaarintii iyo kulli waa meelan ku wada kornay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله caawa waxaan aad uga mahad celinaya dadkii isku soo dubaraday xafladan qiimaha badan oo loo sameeyay soo dhaweynta walaalkeen Bashiir Yuusuf Maxamed Bashiir Fox oo taariikhdiisa hadda wixii taariikhdii Bashiir laga wada waramay oo aan dib ugu noqonaynin laakiin Bashiir waa nin legend ah waa dadkii isboortiga basketballka taariikhda Soomaaliya qayb dahab ku leh haddana ka shaqeeya wali fieldiga basketball ku dhex jira Bashiir waxaan ku leeyahay ku soo dhawow London waa macallinkeenii oo hogaamiyaheenii oo soo dhaweynayna assalaamu calaykum waraxmatullaah
بسم الله الرحمن الرحيم waxaan jeclaan lahaa marka hore inaan aad ugu mahadceliyo dadkii xafladan wanaagsan noo soo abaabulay caawa iyo inaan mar labaadna ku soo dhaweeyo halkay Bashiir magaaladan London oo baadii laga London uu yahay laakiin wanaga maqnaa shaqo qaran oo ku maqnaa marka qof waliba shaqo qaran qabtana soo dhaweynteedii iyo mahadcelinteedina gooni uu leeyahay Bashiir asagoo ahaa ciyaartooy qaran Soomaaliya soo mathalay laakiin hadda mas'uuliyadda hadda uu hayo waa mas'uuliyad qaran oo muxuu ahaa gudoomiyaha xogeenka koowaad xiriirka kubadda kolayga Soomaaliya shaqo weyn ayay qabteen oo ciyaaro qurux badan ay qabteen ciyaartooy wanaagsanna way soo xuleen marka xiriirka Soomaaliya ee kubadda kolayga horumar fiican ay ku talaabsadeen aan dhihi karaa waxaan rajaynaynaa xiriirada kale ee Soomaaliyeed ayagana sidaas oo kale inay waxyaalo wanaagsan tan hadda ay qabteen kubadda kolayga oo kale marka Bashiir waxaan leenahay idinku mahadcelinaynaa baada muxuu ahaa baada kubadda kolayga marka waxaan ku leeyahay soo dhawo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan aad iyo aad caawa ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladda qiimaha weyn lagu cazumay oo lagu sameeyay maqaayadan qiimaha leh Ocean Bashiir Yuusuf Maxamed Bashiir Fox oo ah nin aad iyo aad caan uga ah kubadda kolayga Soomaaliya waayadu bilaabay ilaa hadda Bashiir kulli inta ka xasuustaan kulli in ka sheekayna Bashiir wuxuu ahaa nin aan soo kooxnahay wuxuu ciyaari jiray basketballka ana markaa ciyaari jiray footballka waxaan soo marnay marxalado fara badan soo marnay waxaan soo marnay aan ku xariisnaan jirnay meel yiraahdo Mayon Gaare waxaan ku xariisnaan jirnay meel yiraahdo Stadium Muqdisho markii dambe Bashiir waa nin aad iyo aad aan saaxiib u nahay waa nin maaragtay afgaaban waa nin aad zaciim u ah markii ugu dambeysay aan qadar tagay maalinta dhaweydna nin aad loogu jecel yahay ayuu yahay oo koox aad iyo aad u weyn oo koobka qaado Real yiraahdo ayuu macallin u yahay wuxuu macallin u yahay kooxda qaranka ee wadanka Qatar ayuu macallin u yahay Bashiir waa nin aad iyo aad basketballka u fiicnaa markuu ciyaaray waliba kooxda naadiga ee Batroolka anagoon waliba koob qaadan footballka iyo basketballka kooxdii ugu horeysay ee koobka qaada ayuu kamid ahaa oo anaga waliba waxyaalo fara badan ku helnay Bashiir runtii wuxuu kamid yahay dadka yar mudan in lagu daydo ayuu kamid yahay Bashiir Bashiir Yuusuf runtii waxaan dhihi karnaa caawa dadweynaha caawa ka soo qayb galay dadkii soo qaban qaabiyay oo hormood u ahaa Tigana waxaan leenahay aad iyo aad ay u maashantiin iyo inta qofood oo gabdho iyo wiilba leh caawa ka soo qayb gashay halkan waxaan leenahay Bashiir walaalkii igu weyn ku soo dhaw halkan magaaladaadii London magaalada labaad waa maashantiin bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin wasalaatu wassalaamu calaa rasuulillaah sida dadka walaalahay hore u sheegeen waxaan la qabaa mahadda dadkii odayaasha ahaa xafladan soo qaban qaabiyay runtiina waxaan isleeyahay xafladan waxay muujinaysaa jacaylka iyo walaaltinimada iyo wanaagga loo qabo walaalkan Bashiir ha weynaato ama ha yaraato waxa muhiim ah horta maartay xusuusta iyo is aragga marka waxaan isleenahay nagama maqna xusuusta Bashiirna markii ugu horeysay ma aha uu noo yimaado marar hore aan aragnay xaflado ka waaweyn xafladahan loo sameeyay laakiin waqtiga ciriiriya sidii maartay hore loo sheegay ku dhacday in dadkan yar isugu yimaadaan laakiin wali waxay muujinaysaa kalgacaylka aan u qabno Bashiir Yuusuf Maxamed runtii taariikhdiisa hore looga hadlay waxaase muhiim ah in aad looga fakero ama loo soo hadal qaado kaalinta muuqata oo wadankeena oo uga jira horumarinta isboortiga dalka gaar ahaan kubadda kolayga waxaana ugu weyn magaca uu ku leeyahay wadamada islaamka iyo qaaradda Asia taasoo xambaarsan magaca Soomaaliyeed maadaama uu macallin Soomaaliyeed yahay magaca Soomaaliyeedna wado ay muujinayso wanaaga iyo kartida ay Soomaalida u leedahay kubadda kolayga marka waxaan leenahay waa ku mahadsantahay magaceena asidid Soomaaliya dhan mas'uul ka tahay waana kugu soo dhaweynaynaa London mar saddexaad mar afaraad waxaan ku leenahay soo dhawow ilaahayna ku nabadgeeyo ka dadaalkaaga meesha ka sii wata assalaamu calaykum assalaamu calaykum waraxmatullaahi salaam dhamaantiin Bashiir Yuusufna waan salaamay laacibka basketballista tababaraha waxaan idin soo gudbinayaa salaan aad iyo aad kaliya laaba salaan ka bacdi aad baan ugu xumahay sida cadar sheegtay Bashiirow nagama mudnayn caawa intaas laakiin dib ma leh waa insha Allah mar dambe waana isu imaan doonaa ilaahayna ha ku nabadgeliyo dadkii sportska gabdhina aad baan ugu xumaynaa caawa kaliya ka joogo insha Allah mar dambe baan isu imaan doonaa hadii Ilaahay yiraahdo bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan lagu soo dhaweynayay walaalkeena
bashiir yuusuf bashiir fokis runtii bashiir wuxuu ahaa ciyaartooydii naadiga batroolka iyo qaranka africa iyo asian magac weyn ku leh runtii waa haliyada aan ku faarno ilaa hadda marka bashiir waxaan ku leenahay soo dhawaaw waddankaagii labaad mideeda kale waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dadkii soo qaban qaabiyay xafladan iyo tviyada ka soo qaybgalay universal iyo somali channel dhammaantiin waa mahadsantihiin asalaamu calaykum bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waxaan aad ugu faraxsanahay xafladan caawa lasoo qaban qaabiyey walaalkeen bashiir fox oo nooga yimi waddanka qatar bashiir markii ugu horreysay u yimaada waddankan maaha bashiir waa waddankiisa labaad maaha inaan dhahno kusoo dhawow maaha bashiir gurigaad waa guriga ingiriis waa gurigaada saddexaad marka waxaan ku rajaynayaa kheyr iyo horumar wanaagsan asalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد مركو رواية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka xigta runtii aad iyo aad baan caawa ugu faraxsanahay in halkan aan kusoo dhaweyno nin qaali ah haday noqoto bahda isboortiga xagga basketka runtiina taariikhdiisa kolley halkan laguma soo koobi karo laakiin bashiir fox kolley london waa magaaladaadii horta marka hore kusoo dhawow london runtii howlaha aad ka qabatay basketka wixii hore barisamaadkii iyo waxa hadda kolley waxaan u malaynayaa kuwa hadda ayaanu annaga ahaan aan faysgaraynaynaa just laba kalmood uma rabaa inaan kaga dayano oo ah basketka waxay sanadkii hore ay ka sameeyeen xiriirka kubadda basketka haddaad u eegto adduun weynahoo kale kolley waxaan filayaa dhinaca basketkana in aanu kaga dayano hadda insha allahu tacaala waxaa soo socda cayaaro fara badan insha allah hadda waxaa nagu soo hayay May African Youth Games marka kolley waxaan filayaa in laga maaragtay fursad qaato inaysan noqon just basket ay u furantahay cayaaro ay nooca kolley haddii annaga aanu isku koobannahay haddii annagu aanu fankeennii waxaynii iska bixinayno waa loo ogol yahay any maaragtay football haday noqoto haday basket noqoto haday any maaragtay games marka kolley insha allah hadalkay waxaan kusoo koobayaa aanu ka faa'iidaysano cayaaraha dhiman doona bashiir kusoo dhawow mar labaad iyo mar saddexaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhammaantiin waxaa farxad noo ah caawa inaan barnaamijkan quruxda badan kasoo wada qayb galno si aan u soo dhaweyno walaalkeen bashiir fox oo london inoogu soo booqday waxaan qaadanayaa dhaliisha iyo haddii wax soo baxaan way qurux badnayd meeshaan meel ka weyn laakiin waqtigoo iska cidhiidha bay ku dhacday waxaa mar kale u mahad celinaya dhammaan dadkii ajiibay waqtigooda qaaligaa soo lumiyey inay caawa nala wadaagaan xafladan bashiir sidii la sheegay taariikhdiisa dib uguma noqonayno waa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee kubadda koleyga ee Soomaaliyeed waana macalinka xulka qaranka Qatar marka intaasaaba inooga filan taariikhdiisii iyo waxa uu yahay inaynu maaragtay ka dheehano bashiir ku soo dhawow London walaalaha waxay jeclaadeen inay kula kulmaan iyada oo ay fiicnaan lahayd iyada inta laga badan yahay laakiin intii ku soo haleeshay ee waqtigooda qaaliga ku soo hurtay waa ku yimaadeen caawa wax oo hadda kale oo aynu hadda ka hadalna ma jirto waxaan jeclaan lahaa inaan bashiir ku soo dhaweeyo mikrofoonka maadaama waqtigu uu ciriir yahay bashiir ku soo dhawow bismillaahi raxmaani raxiim horta waxaa farxad ii ah inaan caawa kala soo qayb galo xafladan qiimaha leh oo runtii igu abuurtay waagaan ciyaari jiray markaan arko dad ii sabcinay yani ma malayn kartid sidaan waxaan dareemay aad baa u mahadsantihiin xafladan quruxda badan dadkii soo agaasimay miidiyaha universal somali channel iyo asxaabteedii kale oo sportiga ahayd oo dhan football basketball intaa kadib waxaan uga faa'iideysanayaa caawa fariin yar oon rabaa inaan idiin sheego oo ah bisha June hadduu ilaah yiraahdo waxaan ka qayb galaynaa cayaarihii isla reebkii Africa All African Championship waxaa lagu qabanayaa Uganda kooxda Soomaaliya kubadda koleyga waxaan rabnaa inaan ka qayb galno waxaan bilownay bisha November hadduu ilaah yiraahdo in Minneapolis lagu sameeyo try-out-kii oo kooxda lagu sameeyo try-out kadibna lagu sameeyo try-out kale January magaalada la yiraahdo Toronto Soomaaliyana lagu sameeyo Londonna waxaan jecelnahay in lagu sameeyo Europe la soo keeno December intaasna waxaan u galnaynaa inaan meeshii geeyno cayaartooy u qalanta
masali karta waddanka Soomaaliya marka de mar haddaan saas u hadlay waxa weeye taageeradiinni waa idinka baahan yahay basketballku dhaqaale ay leeyihiin ma jiraan waxay ku socdaan waxa weeye diasporaha Soomaaliyeed inay wax u qabtaan ay wax u taraan marka taas waxaan weeye xil baan idinka saaraynaa inaad arrintaas xoog iska saartaan insha Allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh صعب 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 بدنها الوقتمو صعب 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 بدنها الوقتمو برتوا قرون بوعدي عيارها بربارتي لصوحبي ترتان لوغو باقي بوشي خيري يا أبو سركعة صعب 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 بدنها روتمو صعب 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 بدنها روتمو هو بري الله لما بشا عالم كيكالي نغدى قوشا بيك صدا شبك صدا أو هلا بلا سري